بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال مeel kasta joogtaanba ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo maanta ku saabsan ka ganacsiga suuqa internetka markaad maqasho ka ganacsiga suuqa internetka waa hubaal in ay kugu soo dhacayso lacago digital oo wax lagu kala iibsanayo ama alaabooyin la kala iibsanayo maanta way ka duwan tahay taas suuqan digitalka ee maanta ka hadli doono waa suuq lagu magacaabo forex waa isku bedelka lacagaha qalaad dad badan ayaa jira oo lacag ka sameeyay dadkii mid kamid ah ayaa maanta inala jooga waa Cabdiweli Macalimow oo ah nin dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana khibradiisa iyo aqoonta uu leeyahay xirfadan uga faa'iideeyay kumanaan kale oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo joogta dalkii hooyo iyo qurbahaba Cabdiweli soo markan aad baa maasantahay Maxamed waan dhawahay bal marka hore waxaan weydiin doonaa Cabdiweli qofka uu yahay si intiina taqaana maaha inta kalena ay u ogaato aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiweli Axmed Cali sidoo waxa la yaqaanaa Macalimow waxaan ahay nin dhalinyaro oo ku nool dalka dibadiisa iminka waxaan deganahay magaalada Gothenburg ee dalkan Sweden dhowrkii sano soo dhaafay 5 sano 6 sano oo dambeysay halkan ayaan joogay hasaate ka hor waxaan ka imid Soomaaliya iyo dhulkeeni hooyo iyo Afrika inta aanan halkan imaan ka hor waxaan qof dhalinyaro ardaya oo daraaseeya dunida horumartay iyo sida lacag waxa loo sameyn karo hasaate halkan markaan imi hadafkaygu uu cadaa marka horeba waxaan doonayaa inaan noqdo qof ka duwan dadka inteeda kale oo ka shaqeysta suuqan internetka waxa jira wax loo yaqaan entrepreneurship oo macnaheedu tahay in adigu shaqo abuuratid adigu aan lahayn boss ka sareeya ya xafiis u shaqo tagtid toona 3 sano markaan ka joogay kadib waxaan noqday entrepreneur waxaan ka soo shaqeeyay noocyo kala duwan entrepreneurship ku ay leedahay iminka oo aynu joogno 2019 dhamaadkeedii waxaan ahay qof ganacsada oo ka shaqeysta suuqa sarifka lacagaha qalaad ee magaciisa loo yaqaan forex trading soo kale waxaan ahay macallin dadka bara sidii suuqa looga shaqeysan lahaa dawdayaal Cabdiweli bal waxaan weydiin doonaa inuu sharaxaad inaga siiyo waxa uu yahay forex iyo kelmadan micnaheeda iyo sida loo ganacsado Cabdiweli aad baa maasantahay Maxamedow forex waa eray Ingiriis ah oo ka yimid labada kelmadood ee loo kala yaqaan foreign exchange marka waa laba kelmadood midna forex baa laga soo qaatay midna ext baa laga soo qaatay forex aas ku yimid af Soomaaliya waxay noqonaysaa sarifka lacagaha qalaad ama isku bedelka lacagaha kala duwan ee dalal kala duwan adduunka ay leedahay dabcan forexku waa suuqa maaliyadeed ee adduunka ugu weyn waa suuq maalintii la isdhaafiyo ama la isku bedelo lacag ka badan 6.6 trilyan oo dollar waa suuq ay ku midaysan yihiin dawladaha bangiyada dadyoga billionaireska ah sharikaadka waaweyn hantida haysta sidoo kale shacabka intaba waa suuq ilaa 2017 bulshada Soomaaliya dhexdeeda ku soo badanayay oo ay dadku hadal hayntiisa hayeen waa suuq sidoo kale waxa la yiraahdo qofka Soomaaliga asagoo gurigiisa jooga oo ka shaqeysan karo siyaasad qayb uga noqoto waxa u baahan tahay markooda inay haystid internet inay haystid mobile ama computer midkood inkastoo fiican tahay labadaba inay haystid iyo waxa la yiraahdo inaad xirfadiisa taqaanid marka forex marka soo koobno waa xirfad qofkii bartaay oo ganacsi ku sameeysan karo ma ahan ganacsi qof walba intuu soo galo lacag ka sameyn karo adiga Cabdiweli ahaan maxaa kugu dhiirigeliyay inaad dadka suuqa ka ganacsada ka mid noqotid aad baa maasantahay Maxamedow laba qodob ayaa sabab u ah inaan uu forex trader noqdo ama aan suuqan ka shaqeysto qodobkooda waxa weeye maanta adduunkan aynu joogno wax qof oran kara shaqadeedu 100% waa safe oo shaqadeedu waa shaqo aan laga qaadi doonin ويريا رنتي قفك ما أنت أختار كلو كفي عم بصوب حكرة كم وريا كلو كخطر سن بصوب حكرة كم وحوي مقاعدة هايست مقاعد كلو كشيء باكس لو فركرة لكن فوركس خفك شقينية أدونك أنت أي لعك شرته شقة كلو باهن مية مرك قلب كواد وكلفي إن فوركس كشقيست وحويه وحلا يقنا job security أما إنا حيستد هو بنتيش شقة قلب كلواد أنا ركره sabab uu yahay in forex qayb ka noqdo ama aan go'aansado waxa weeye waxa la yiraahdo xorriyada suuqan waa suuq xor ah dunida meeshii doono aan ka taga maanta mobilkaygaas ayaa ugu filan aniga uma baahni in qof shaqo isiiyo uma baahni in waxa la yiraahdo aan xafiis tago uma baahni xataa wadanka aan tago luuqadiisa inaan barto waxaan u baahanahay mobilkayga iyo internet isku xiriirsado kadibna meel kasto adduunka aan joogo lacag ayaan sameyn karaa marka qodobka labaad waa xorriyada noocaas oo qofku uu xor yahay lacagtu sameyn karo intay leegtahay inta maalmood shaqeyn kartid hadaan familkayga qof kamid ah xanuunsado bil waaska joogi karaa gurigayga hadii aan wax la yiraahdo u baahdo inaan fasax qaato 2 bilood fasax waa qaadan karaa sababtoo ah cidna iga ma sugayso inaan meel heblaayo tago xilli cayiman sababtoo shaqadeedu halkan ay ku jirtaa marka hadaan soo koobo forex aniga labada qodob igu dhiirigeliyo waxa weeye in aan haysto hubanti inaan shaqo kale u baahan doonin sidoo kalena in ay tahay xorriyad aysan cidina amar siineen cidna ii yeerin inta lacag sameyn karo
cabdiweli wayn ognahay ka ganacsiga suuqa internetka waxa ku gadaaman khataro fara badan dad ayaa jira hantidoodii lacagood ku waayey suuqyadan markay ka ganacsanayaan khataraha ugu waaweyn ee forex ku hareeraysan maxay aad ba umahadsan tahay maxamedow forex sida aynu ognahayba waa fursad fudud oo qofku si fudud lagu soo gelin karo hebel baa lacag samee kaa lacag samee hase ahaatee sidoo kale waa meel uu qofka aan taxadirin lacag badan ku khasaari karo runta markaan kuu sheego dadyaga kale ee meelaha jooga ee forex guuriga ah ama sheegtay inay forex dadka ugu yeerayaan qodobkan kama dhawaajiyaan hase ahaatee anagu mar walba waxaanu dadka siinaa digniin ah aan leenahay meeshaan aan kusoo orday sida forexka ah sida lacag looga sameyn karo si leeg ayaa lacag loogu khasaari karaa dhowr habba qofku lacag ugu khasaari karaa waa midda koowaad qofku wuxuu lacag u khasaari karaa inuu qof yiraahdo anaa ku baraya forexkiya $10 ama $100 si hadhowna intii dhowr habba loo xarxariiqo isagoo wax baran la yiraahdo iska soco waxa kale lagu khasaari karaa qofka in lacagtiisa intii laga qaado la yiraahdo anaa kuugu shaqaynaya ii dhiibo oo aad qofkii kaash farta ka saartid dhowr bilood kadibna isku timaadaan maybe inaa qof fiican ku aadid laakiin inta badan maadaama dadkii wax kala saaraya jirin boqolaal qof oo ku xadi kara ayaa jira inta lacagtooda kaa qaataan hadhow waxay doonaan ku sameynayaan deetana ku oranaya lacagtii waxa la yiraahdo way gubat waxa kaloo dhici kara dadka qaybtooda inaad adoon forexkii aqoon badan ku lahayn intaad mobilka la soo degtay ila wixii lama kala xigay qof walba gali kale aad appkii MT4 ee lagu shaqeynaya la soo degatid deetana $100 oo aad maybe jaamacad ku dhigan lahayd ama guriga kalidiisa ahayd ama biilka xaafadda ahayd inta meesha iskala gashid adoon cid kale ku dhicin adigu is dhacdo is khasaarisid oo lacagtaadii aad suuqa marna kor raacday marna hoos u raacdo xirfad lahayd marka dabcan saa sheegtay forex khatar badan baa ku gadaaman oo qofkii aan xirfadda baran maxamedow uu si fudud lacagtiisa ku khasaari karo waxaa jirta inaad samayseen goob waxbarasho dhanka internetka ah oo la yidhaahdo Hayaan Academy isla markaana madalo fara badan oo wadankii ku qabateen dhalinyaradii wadankiina aad gaarsiiseen Hayaan Academy muxuu yahay magacan muxuu ku yimid marka hore aad baa umahadsan tahay maxamedow inta aan ka hadlin Hayaan Academy waxaan bilownay 2019 bishii 9aad 15keedii ayaan oqda ka qaadnay waa madal waxbarasho oo online oo internetka dhexdiisa ka jira hasaat intaan Hayaan ku qeexin waxa jirtay 6 bilood oo ku horeysay oo aan bulshada Soomaaliyeed si free wax ku bari jirnay waxaan haysanay application la yiraahdo Telegram oo ah group lagu sheekaysto oo 10,000 oo qof dad ka badan aan si live aan ugu xubarayay oo suuqan ka caawinayay oo aan tusayay in waxa kan wax fudud la baran kara yahay kadib waxaan aragnay in ummadii aan wax barnay ay guuleysteen kadib si wixii loo gaarsiiyo boqolaal kun oo qof waxa laga maarmaan noqotay inaan system yeelano meel goob ah oo macluumaadkan dadka si lagu kaydiyo Hayaan Academy waa website internet dhexdiisa ka helisid waa madal waxbarasho oo tii ugu horeysay oo nooceeda ah oo dad Soomaaliya leedahay macluumaad ku jira af Soomaali yahay looguna talagalay ummadda Soomaaliyeed in wax lagu baro website-ka waxa ku jira muuqaalo duuban oo loogu talagalay si tallaabo ah in qofkii suuqan rabay inuu guul ka gaaro inay bari doonto qofkii 6 bilood ka hor forex ku soo biiray ee qofka maanta ku soo biiray Hayaan Academy u simeeyeen sababtoo ah midka 6 bilood ka hor nagu soo biiray wixii uu bartay ayuu kan cusubna baranaya kadib dadka oo dhan waxa la isku keeni doonaa group Telegram-ka ah kii 6 bilood nala joogay kii bil nala joogay kii 5 bilood nala joogay oo anigoo macallinkii aan ku mentor gareynayo ama aan ku coach gareynayo maalin walba aan ku gacan qabanayo waxaanu 3 habeen oo habeenada asbuuca kamid ah aan soo galaa si live ah inaan suuqii la kala dhigdhigo oo niraahdo suuqi maanta halkaan ka dhacay lacagtan aan maanta galinaa tan maanta ma galino arintaas aad jidda warbixintaana soo baxday waxaan safarku waa safar maalinle ah dabcan magaca Hayaan waa kelmad af Soomaaliya oo micnaheedu uu yahay safar aan dhamaadkiisa la ogeyn waa geediga ay reermiyigu qaadaan markay doog iyo barwaaqada sugayaan inagu waxaynu ku jirnaa geedi dhaqaale waxaynu ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin dad dhibaato iyagu aysan geysan cawaaqibteedii maraya dhulkii Soomaaliyeed uu baaba'san yahay qayb colaada ka jiraan iyo qayb shaqo la'aan iyo dhibaatooyin kale ka jiraan dhibkaas socda wiilka 30 sano jira ama gabadha 25 sano jirta iyadu ma aysan geysan ama isagu ma aysan geysan aabayaasheen iyo awooyaasheen baa geystay marka waxaan anagu ku jirnaa safar dhaqaale oo aan doonayno dadkaas inaan adduunka inta kale ku gaarsiino han kobcin baan wadnaay inaan dhiirigelin u sameeyno marka ereyga Hayaan waxaan u dooranay in qof walba maalinta uu nagu soo biiro وسفركان وبلابنايو aysan khasab ahayn kii ka horeeyna la qabsatid sidoo kale qof walba maalinta uu gaaro isagu hankiisi iyo meeshii ku filneed oo safarkiisa u dhamaanayo oo aan la oran karin 6 bilood baa lagu jaangooyay sanad baa lagu jaangooyay safarkan waa Hayaan waa marathon waa orod aan bardhamaad lahayn oo lagu kala ordayn ujeedkuna waxa weeye inaan 1 milyan oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed aan xirfadaan barno si qoyskooda iyo bulshadooda u caawiyaan Cabdiweli halkan waxaan ku hayaa book aad qortay oo lagu magacaabo Forex Somali buugan
intaan ka akhriyay ama intaan aad ciwaankiisa horeba ka aragtid waxaa ku qoran forex Soomaali wax walba oo aad uga baahan tahay suuqa sarifka lacagaha qalaad buuggan aad qortay ujeedkaad u qortay muxuu yahay iyo xogaha buugga ku jirta aad baa umahadsantahay maxamedow waxaynu joognaa casrigii warbixinta oo maanta adduunka aynu joogno qofka uu warbixinta saxan haysto uu ka horumarsan yahay internetka waxaa buuxa boqolaal macluumaad fiidiyoyo qoraallo sheeko dhan laakiin 10 sano kadib ama 10 sano kadib waxa la isweydiinayaa war forex la sheegay yaa wax ka qoray qofku wax qoray waa qof la aamini karo sababtoo ah meel loo raacaya jira wax uu qoray maanta qof Soomaaliya intaan aniga ogahay oo forex book ka qoray ma jiro buuggan forex Soomaali waa buuggii ugu horeeyay ee daabacan maanta dhulka Soomaaliyeed yaala ee forex laga qoray waa qodob koowaad wuxuu siinayaa credibility inaan nahay dad waxaan ka sheekeynana aqoon u leh buuggu wuxuu soo koobayaa sida ka akhrisaba wax walba uga baahanta suuqa sarifka lacagaha qalaad kuma dhahayo isaga inta baratid ayaa suuqa hore ka galaysaa macluumaad kale uma baahnid hase ahaatee wuxuu soo koobayaa wax walba oo ku saabsan lacag ku saabsan forex ku saabsan online talaabooyinka la qaado suuqan ka shaqeysta istiraatiijiyado iyo qorshayaal qofku raaci karo si wuxuu tijaabiyo buuggan markii aanu daabacnay markii koowaad aynu qornay si free ayaan bulshada ku siinay oo online ahaan baan u sii deynay si ay mobilkooda ugu akhristaan sidoo kale buuggan markii ugu horeysay waxaan ku soo bandhignay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaan ku soo bandhignay bandhiga caanka ah loo yaqaan Muqdisho International Book Fair wuxuu ahaa buugga loogu iibsiga badnaa maalinta koowaad bandhiga ilaa wuxuu gaaray buugga oo arkay oo uu gacantiisa galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre sidoo kale inta kuma joojinay buugga waxaan ku soo bandhignay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland si uu u gaaro dhalinyarada Soomaaliland ee halka ku dhaqan waxaan markii ugu horeysay 500 oo qof iyo wax ka badan oo suuqan ka shaqeysta isku keenay madal si buuggan loogu soo bandhigo inta kuma joojinay gobolada bariga iyo magaalada Garowe ee caasimadda Puntland buugga Wangeyn ayadana waa lagu soo bandhigay sidoo kale waxa buugga lagu soo bandhigay dalalka dariska ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed jaamacadaha u aadeen sida magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya magaalada Kampala ee caasimadda waxa la yiraahdo Uganda sidoo kale dhawaan buugga waxa lagu soo bandhigay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya magaalada Jigjiga oo ay joogaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo reer Jigjiga ah iyo kuwa waxbarasho u aaday maxaan magaalooyinka u dooranay ujeedku waxa weeye in sax ahaanshaha forex uu gaaro dadka suuqan ka shaqeysan kara aniga hadafkaygu ma aha odayaasha lacagta haysta iyo maamooyinka lacagta haysta iyo dadka hantida haysta ee dhulka jooga inaan intaan akhriyo inaan lacagtiina keena hadafkaygu waxa weeye in dhalinyarada mobilka fahmaysa computerka fahmaysa internetka iyo technologyga casriga fahmaysa in aan la gaadin oo informationka saxda ah ee forex-ka aan u geyno marka buuggan ujeedkiisu kaasoo ahaa waa macluumaad qoran ma aha inaan ku leeyahay buuggan kaliya akhri kadibna forex school baa ka gaaraysaa balse indhuhu ku furaya qofka buuggan akhriya marmarsiyo uma noqon doonto forex baa lagu dhacay sababtoo buuggu wuxuu ku kala cadeynayaa maxaa forex maxaan forex ahayn ujeedkiisuna waa inaan ummadeena ku badbaadino si boqolaalka tuugo boqolaalka barnaamij oo dadka lagu indhasar caadinayo ee meelaha la wareegayo aan dadka loogu dhicin cabdiweli ma jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo hay'adiinan Hayaan Academy intay wax ka barteen suuqan galay oo lacag badan ka sameeyay dabcan dhalinyaro kaliya wuu kuma oranayay waxa jira dhalinyaro waxa jira hooyooyin waxa jira aabayaal waxa jira dad ilaa PhD haysta waxa jira dad 3 jaamacadood ka badan ka baxay oo fursad shaqo la'aan ma inay aqoon la'aan hayso laakiin fursad shaqo dalkeena kama jirto markaynu runta ka hadalno oo forex anagu aanu barnay anagu markaan ku leeyahay waa Hayaan Academy teamkeena waxaanu haynaa hooyooyin qurbaha jooga dhulkan Yurubta jooga oo forex-ka intay barteen maanta lacag sameeya waxaynu haynaa oo dadkeena kamid ah dhalinyaro dhulkii ku baaga muudaysnaa Hargeysa Muqdisho Kismaayo Boosaaso Garowe Galkacyo ay haysay fursad shaqo la'aan fursad yiri shaqo la'aan dhibaatooyin haysay maanta forex bartay awal iyagu wax shaxaadi jiray maanta iyaga la shaxaado arimaha ugu muhiimsan oo aniga runtii qalbi ugu qabo waxa kamid ah in aanu caawinay dhalinyaradii jaamacadaha jirtay sida India China Bangladesh Uganda Kenya waxbarashada u jiray ee biilku waaridka u dirayeen in maanta iyagu ay biil dalka u diraan meesha awal iyaga wax loo dirayay sababtoo ah forex dabcan sidoo kale boqolaal qof oo aan wax maqlayn oo aan la hogaamin karin oo khasaarina way jirtaa hase ahaatee waxaan anagu caawinaa qofkii ogal in wax loo sheego waxaan anagu caawinaa qofkii yiraahdo macallina waa ekan aniga maxaan sameeyaa talaabadee qaada talaabadee ku xujiya wixii loo sheego waxna aan ka reebin waxna aan ku darin wadada saxda ayaan ku hagnaa cabdiweli marka laga hadlayo lacagta suuqani waa lacag aan la taaban karin oo number ah adigu lacag far badan baad ka sameysay dadka imkana daawanaya laga yaabaa inaan rumaysan nambaro ayaa lacag laga sameeyay oo lacag isu bedeshay ma jirtaa lacagaad hadda sameysay oo xadigeedu badan yahay oo aad nala wadaagi kartaa
aad baa masantahay maxamedow inta aan su-aashaas ka jawaabin waxaa muhiima dadka inaan fahamsiiyo qof walba qisadiisu way ka duwantahay dadka intada kale maanta lama oran karo maxamed baa sameeyey lacagta intaa laga macduuli baa lacagta intaa laga sameeyey kaale adna samee because qofkan lacagta sameeyey ma ogid habeenadu u soo dhaxay ma ogid saacadu wax baranayay ma ogid dhibaatooyinku soo maray intaad aragtid lacagtii kaliya isla markii ma ordi karid ma oranaysid ana lacagtii oo kale aan rabaa dabcan anigu trader dhammaystiran baan ahay dhowrkii sano la soo dhaafay suuqaan ku jiray asaga ayaan ku noolahay qoyskayga isagaan ka bilaa noloshayda isagaan ka dabaraa fursadda intaa leegi kambaniga intaa leega arkaysid oo dhulkii oo dhan gaaray hayaan academy forex baa laga dhisay hantidii forex aan ka sameynay baan ka dhisnay cidnana ma maalgelin cidnana ma caawin meel kalena wax kamaanu helin dabcan anigu waxaan ahay trader suuqan ka shaqeeya maalin walba kuma oranayo balse isbuuc walba lacag baan sameynaa iminka waxaad arkaysaa 13 December 2019 maalinta khamiista kaliya in aan hal trade ka sameeyay lacag ka harisa $112,000 ma aha waxa aan trade gelin stock market tahay ma aha inay tahay waxyaalaan kale dadka lagu indhasarcaaday waa forex aan ku barayo waxa aan trade geliyay sida arkaysa sawirkan ka arkaysid waa lacagta Ingiriiska oo lagu bedelay lacagta Australia waa GBP AUD maxaan sameynaynaa waa xirfadii taqaana wayna ogtahay wax la yiraahdo in khatarta meesha ku jirta wayna ogtahay fursadu meesha ka kacaysa marka aan ku leeyahay $100,000 baan sameynayaa maaha in khamaar tahay waa in $100,000 markaa sameynaysa lacag ka badan $100,000 waa in akoonkaaga ku jirto lacagtaas badan akoonkaaga ku jirta qayb yar oo kamid ah waa in khatar ula bareertid sababtoo ah $100,000 markaa istid $500 waa in ula bareeri kartid khatar inaad gelisid $500 waxaad ku maalgashanaysaa lacagta Ingiriiska iyo lacagta Australian dollar waxaad leedahay inta jeer ay hoos isku bedelayso igu dhufo $500 kadibna waxaad ku kalsoontahay lacagteena hoos isku bedeli doonto haddii ay isku bedeli wada hoos ay kor kula aado adiga khasaare la $100,000 laakiin waa aqoontii iyo xirfad kugu filan aad leedahay oo aad ku garan kartid lacagteena hoos socoto kadib traderkaas markaan anigu galo $100,000 iyo ka badan waad samayn kartaa aniga kaliya ma inaan lacag sameeyo waxaad arkaysaa dhalinyarada ila joogta magaalada dhalinyarada dalkii joogta macallimiinta hay'adaha academy dad waxaa jira Soomaaliya jooga maxamedow oo $10,000 isbuucii sameeya waxna aan khasaarin ma ina waxa ka dhiganta inaan leeyahay qof walba hayaan la joogo saas u noqonaya waa maya Soomaalidu waxay ku maamaadaa aqooni waa iftiin laakiin aqoon la isticmaalay baa iftiina waxaan anu garanayaa boqolaal qof oo forex ka yaqaan oo maalin walba khasaaraya sababtoo ah aqoontii cilmigan uu sheeganayo ma isticmaalayo anagu dadka waxaan barnaa website-kan ku jira maxamedow barnaamij loo yaqaano xakamaynta khasaaraha iyo maamulida lacagta oo micnaheedu yahay marka la leeyahay $100,000 baa sameynaya waa in talaabooyin loo maro marka la leeyahay $100 ba $500 loo bedelaya waa in jiraan goolal la raadinayo sidoo kale waxaan leenahay barnaamij la yiraahdo kobcinta lacagta ee jaangoysan oo aan dadku sameeyay tusmo Excel sheet ah oo aan leenahay qofka doonaya inuu $100 $1,000 u bedelo maalinta ku intee ku xigto sameynaysa maalinta intee sameynaysa maalinta saddex intee sameynaysa marka dabcan anigu lacag waan sameeyaa dhalinyarada lacag way sameeysaa ardadayda oo kun qof ka badan iminka inta hayaan ku xiran lacag way sameeysaa sidoo kale telegramkii freega ahaa ee hay'adaha academy channel ee weynaa ee 11,000 oo qof Soomaaliya ku jirto signalaan ku dirnaa lacag baa lagu sameeyaa iyadana marmarka qaarkood balse qofku si uu suuqan lacag uga sameeyo marka koowaad maxamed waa inuu ku baraarugsan yahay in lacag lagu khasaari karo haddii aadan ku baraarugin lacag la khasaari karo habeenka xal ahaa tiga weeye in lacag sameeysid cabdi inagu marayna gabagabada wareysigeena muxuu yahay hiigsigeena hayaan aad baa masantahay maxamedow hay'adaha academy waa madal waxbarasho ay Soomaaliya leedahay Cabduuli macallimu wuu asaasay hay'adaha academy laakiin ma uu doonayo inuu isagu yeesho waa waxaan u sameeyay dadka Soomaaliyeed waa waxna la ka dhaxlay talaabooyinkeedu kuwaana iminka aanu bilownay iminka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ka furan madal waxbarasho iyo trade house oo ah guri aan furnay si dhalinyaradu intay booqato marka website-ka wax ka bartaan gacantooda lagu la fariisiyo sidoo kale magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyadana sidoo kale waxaanu ka furnay madal waxbarasho oo ah xafiis dhameystiran ee ardayda imaan karto soo booqan karto macluumaad ka baran karto iminkan videogan duubana waxa gacanta lagu hayaa oo gabagaba ah madal waxbarasho laga furi doono Garowe hadafkeenu waxa weeye in magaalo walba oo Soomaaliyeed oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed joogto in aanu furno madal waxbarasho sababtu waa maxay sababtu ah anagu ma dhuumanayno dadka forex-ka dadka u sheega waxa lagu yaqaan inay dhuntaan oo aan la aqoon oo meel loo raacaysan jirin waan soo bareernay internetka waan joognaa website baan haysanaa waan soo bareernay magaaladaada waan joognaa guri baan noo furan noo imo waxaan meesha ku hayna arag waxa aanu hayno maaha lacag noo dhiib waa ku shaqeynaa waxa weeye annagu iskuul baana wasaaradda waxbarashada ayaanu ka diiwaan gashanaa ma nihin inaanu bangi ka diiwaan gashanaa meel kale aadana waa madal waxbarasho dadka ayaanu waxbarnaa hadafka hay'adaha academy waxa weeye in 10 sano ee soo socda 1 milyan oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo dhulkii joogta
in aanu xirfadan barno si jiilkaynaan dadkii 30 sano la soo dhaafay Soomaaliya joogay mustaqbalkooda in jiilka soo socda uu ka duwanaado jiilkaas 30 sano la soo dhaafay qof kasta oo Soomaaliya ku koray dhibaatooyin badan baa jiray waxaan rajaynaynaa markaanu anagu doorkayga qaadano in 30 sano ee hadda kadib ah jiilka imaan doona inaan mustaqbalkii annagana loo diyaariyay ka qurux badan inaan u diyaarino mustaqbalku qurux badan yahay maaha inaan leeyahay lacag baa dhibaatooyinkeena oo dhan xalin karta balse waa bilow qofku markuu maanta bariiskiisa iska bixin karo biilkiisa bixin karo qoyskiisa caawin karo waa bilow qurux badan inuu khatar kale u bareerin waa bilow qurux badan inuu dadka dhibin waa bilow qurux badan inuu naftiisa haligin ama uu dalkiisa ka cararin marka ujeedkeenu waxa weeye inaan bilowgaas annagu bilowno inaan sugin cid kale oo cirka nooga soo dhacda inay noo bilowdo marka waxaan rajaynayaa 5 sano ilaa 10 sano ee soo socda inaan 1 milyan oo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ah inaan xirfadan barno si naftooda iyo qoyskooda iyo bulshadooda ay u caawiyaan aad baad u mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa Cabdiweli Macalimow aynu ka wareysanaynay arrimaha suuqa forex iyo waliba hay'adan uu sameeyay ee Hayaan Academy oo ah goob internetka aad wax kaga baran kartid sida ay forex u shaqeyso iyo aqoon kale oo fara badan intaas ayaan ku soo koobaynaa wareysigan kooban oo maanta khuseeyay bal sida uu shaqeeyo suuqa internetka ee forex iyo sida ay dadku uga faa'iideystaan inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono dhamaantiin waxaan idinka tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baa mahadsantahay Cabdiweli adiga mudan kale Allah barkeeyo